daawadayaal ku soo dhawaada warka Somali Television Network. Madaxweynaha Kenya oo la laayahay howlgalla ay wadaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya. Kenya oo markii ugu horeysay ka hadashay sababta ay u joojisay duulimaadyada Nairobi iyo Muqdisho ee tooska ahaa. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan hasaate u diyaar garooba warka oo fidsan. dawladda Kenya waxaa ka soo baxay hadal aad loo sugaayay oo la xiriira sababta duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi loogu leexiyay garoonka Wajeer waxaana laga soo xigtay agaasimaha waaxda badbaadada duulimaadka Kenya arrimo amni darteed in ay u qaadeen tilaabadani ayadoona ay muuqato walaac Kenya ay ka qabta amniga garoonka Muqdisho balse garoonka waa mid si weyn loo ilaaliyo amnigiisa oo ay baaraan dadka duulaya ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM inkastoo aysan jirin wali wax war oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Kenya haddana dawladda Soomaaliya waxa ay horay u sheegtay in aysan Kenya cudurdaar u noqon doonin xaaladda amni ee ka jirta garoonka Muqdisho. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa cadeeyay in ay tuhunsan yihiin in go'aankani uu yahay mid ay ka dambayso arrimo siyaasadeed isagoona markale meesha ka saaray in arrimo amni ayna Kenya u soo rogin xanimaadan cusub. Kenya waxa ay sheegtay in xanimaadan cusub ay sii socon doonto ilaa laga gaarayo 9 bisha Agoosto muddadaasi oo 3 bil ah waxa ayna sheegtay in lagu qiimeyn doono waxa isbedel ah oo dhaca ayadoona dib looga baaraandegi doono in go'aankaasi sidiisa sii ahaado ama in dib u eegis lagu sameeyo. ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa howlgalla ka wada deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayadoona howlgallada ugu ballaaran ee laga fuliyay deegaanada Bariire iyo waliba Lambar Konton sida laga soo xigtay saraakiisha amniga. howlgalka inta uu socday ayaa ciidamada amnigu waxa ay ku guuleystay inta u dhaxaysa deegaanada Bariire iyo Lambar Konton in laga saaro miinooyin dhulka lagu aasay. taliyaha ciidamada dhulka General Odawa Yusuf Raage ayaa sheegay in howlgalkaasi uu yahay mid looga goleeyahay in lagula dagaalamo Al-Shabaab isla markaasna looga hortago miinooyinka ay ku aaseen wadooyinka oo ka mid ah kuwa gobolka Shabeellada Hoose. howlgallada ayaa qayb waxa ay ka yihiin dhaqdhaqaaqyada ay ciidamada toddobaadyadii ugu dambeeyay ay ka wadeen gobolka Shabeellada Hoose. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa muddo 2 toddobaad ah aan ka soo muuqan warbaahinta iyo fagaarayaasha midna markii ugu dambeysay waxa uu ka soo laabtay safar uu ku tagay dalka Shiinaha waxaana baraha bulshada adeegsadeen shacabka Kenyaanka ah oo hareeyay fariimo ku saabsan halka uu ku dambeeyay madaxweyne Uhuru Kenyatta waxaana lagu daabacay baraha bulshada baafin lagu doonayo in lagu ogaado halka uu ku dambeeyay Uhuru Kenyatta iyadoona la soo daabacay fine present Uhuru Kenyatta mana ahan wax horay looga bartay Uhuru Kenyatta in laga waayo meel fagaara ah. ma jirto ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay madaxtooyada dalkani Kenya oo ku saabsan xaaladda madaxweyne Kenyatta hase yeeshee waxa soo baxay warar sheegaya in madaxweynaha dalka Ethiopia ay dhawaan booqasho hal maalin ah ay ku tagayso dalkani Kenya sida laga soo xigtay safaaradda Ethiopia ee ku taala Nairobi. taliyaha ciidamada isku dhafka gobolka Mudug Dhameeh Khaliif Nuur Shiil ayaa geeriyooday dhaawac ka soo gaaray xalayta xabadaha ay ku fureen rag hubeysan. taliyaha geeriyooday ayaa dhaawac culus ka soo gaaray rasaas iyadoona dad goobjoogayaal ay sheegeen in weerarka ay fuliyeen ugu yaraan 3 nin xilli ay dableyda hubeysane ay rasaasta ku fureen marxuumka Dhameeh Khaliif waxaa la sheegay inuu ka soo baxay masjid uu ku soo tukanayay salaada taraawiixda. saraakiil ka tirsan ciidamada amniga gobolka Mudug ayaa sheegay inay wadaan howlgallo lagu baadigoobayo cidii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday sargaal ka tirsan ciidamada balse ma aysan sheegin cid ay gacanta ku soo dhigeen. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda dilka taliyaha ciidamada isku dhafka ee gobolka Mudug kuwaasi oo la dhisay kadib dagaaladii gaalkacyo ka dhacay kuwaasi oo loogu talagalay xasilinta xiisadaha mararka qaar ka dhaca gobolka waxayna inta ay dhisan yihiin ay ku guuleysteen xal u helidda isku dhacyo ka dhaca gaalkacyo. dabayaaqadii bishii Abriil ee sanadkii hore ayaa weerar ismiidaamin ah lagu dilay taliyihii hore ee ciidamada isku dhafka gobolka Mudug iyadoona weerarkii xalayta uu ka dhigayo taliyihii labaad ee ciidamada oo la dilo.
maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Nugaal ayaa maanta go'aan ka gaartay xukunka raggii ku eedeysnaa kiiskii Caashe Ilyas Aadan oo sanadkan horraantiisii kufsi iyo dil loogu geystay magaalada Gaalkacyo. maxkamadda ayaa dil ku xukuntay 3 ka mid ah 10 ruux oo kiiskani u xirnaa. dhageysiga maxkamadoodana ay socotay toddobaadyadii ugu dambeeyay. ragga ay maxkamaddu dilka ku xukuntay 2 ka mid ah waa walaalo wada dhashay kuwaasi oo kala ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame 24 jir iyo Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame oo 32 jir ah iyo qofka saddexaad oo ah Cabdishakuur Maxamed Dige oo 46 jir ah. maxkamadda ayaa sidoo kale fasaxday 7 nin oo kaleeto oo kiiskani ku eedeysnaa kuwaasi oo ay dambi ku weyday garsooraha maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in ragga la xukumay ay haystaan bil racfaan ah. maxkamadinta raggaani ayaa dhowr jeer oo horeyto dib u dhacday iyadoona qareenadii u doodayay ay codsadeen in waqti dheeri ah la siiyo waxaana uu ahaa kiiskii gabadhaani ee la kufsaday kadibna la dilay mid caraweyn ka dhaliyay magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan geyiga Soomaalida. Allah u naxariistay Caashe Ilyas Aadan dhamaadkii bishii Febraayo ee sanadkan ayaa meedkeeda laga helay gabadha oo 12 jir ahayd meel aan ka fogeyn gurigooda ay ka deganayeen qoyskeeda oo ku yaalay Gaalkacyo. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkayagii oo inkaga imaanayay Somali Television Network. inta warka mid lamada ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.